kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobada aan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah dawladda Turkiga oo ammaantay go'aanka dawladda Soomaaliya ay ka qaadatay dalka Faransiiska oo u gafay diinta Islaamka. weerar goordhow ka dhacay dalka Faransiiska kadib aflagaadadii madaxweynaha Faransiiska u geystay diinta Islaamka. Masar oo la safatay dalalkii aflagaadiyay nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa haatee iyo go'aano dhaawacaya sharafka diinta Islaamka uu gaaray madaxweynaha wadankaasi. wararkeena kalena waxaa ka mid ah qaramada midoobe oo laashay eedeyn la xiriirtay taliye ciidan oo si weyn ugu dhawaa ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre. Mareykanka oo shaaciyay xeelad cusub oo kula dagaalamayo dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo la sheegay in dhaqaale ka badan midka dawladda ay canshuur ahaan u qaadaan. Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo imaam ka noqday masjidka weyn ee Aya Soofiya oo dhawaan dib loo furay, iyo Mareykanka iyo Shiinaha oo iska kaashanaya qorshe si weyn loogu curyaaminayo Soomaaliya. qodobadaas aan ku faafayn doona barnaamijkeena insha Allah. waa galab khamiisa 29 bisha 10 Oktoobar sanadka 2020. barnaamijka wararka Soomaaliya oo midaan ku soo gudbinayno dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantiin inaad taasna la fahantaan. fadlan nala faafiyo wararkan oo gaarsiiyay saaxiibadiina adinkoo ku shargaraynaya baraha bulshada. mahadsanidin. aynu ku bilowno wararkeena. wararka naga soo gaaraya dalka Faransiiska oo dhawaan lagu aflagaadiyay nabigeena suuban nabadgelyo naxariis korkiisa haatee ayaa waxa ay sheegayaan in weerar uu ka dhacay. sida ay warbaahinta caalamiga ah soo warisay, weerarka ayaa loo adeegsaday midi waxaana uu ka dhacay magaalada Nice ee dalkaasi. booliska ayaa sheegay in weerarka ay ku dhinteen 2 qof, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. duqa magaalada Nice ayaa sheegay in weerarkaasi uu yahay mid argagixisadu ay fulisay. Christian Story duqa Nice ayaa Twitterka ku soo qoray in weerarku uu ka dhacay meel u dhow kaniisad. weerarkan ayaa imaanaya xilli Faransiisku uu dhaleeceyn xoog leh kala kulmayo aflagaadadii nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa haastay ay u geysteen ama u geystay bar lagu magacaabi jiray Samuel Paty, kaasi oo sawir gacmeed ka sameeyay nabiga waxaana kadib qoorta ka jaray qof dhalinyaro ahaa. madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay hadal uu si weyn markaasi ugu ceebabay isagoo oo ku baaqay dagaal ka dhan ah Islaamka. dalka Faransiiska ayaa ah dalka muslimiinta ugu faraha badan ay ku nool yihiin qaaradda Yurub. dhinaca kalena iyadoo sii sara kacayso carada ka dhalatay hadalkii madaxweynaha Faransiiska ayaa dawladda Turkiga waxay si weyn u ammaantay go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay gafka diinta Islaamka uu kula kacay dalka Faransiiska iyo madaxweynahooda. madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya ayaa bayaan xalay ay soo saartay ku sheegtay mowqifkeeda ku aadan hadalkii ka soo yeeray hogaamiyaha Faransiiska iyo guud ahaan dalka Faransiiska. fal kasta oo dhaawacaya dareenka dadka muslimiinta ah waxa uu u adeegayaa danaha kooxaha xagjirka ah, waxaana habboon in laga fogaado ficiladan oo kale maadaama ay abuurayaan nacayb bulsho oo ka dhaxdhasha shucuubta caalamka ee kala aaminsan aragtiyada iyo diimaha kala duwan. dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku boorinaysaa hogaamiyaasha caalamka in ay si taxaddar leh uga fiirsadaan hadallada xadgudubka ku ah dareenka dadka muslimiinta ah, iyaga oo kala saaraya xorriyadda hadalka iyo ku xadgudubka muqaddasaadka diiniga ah, ayaa lagu yiri bayaan iyo go'aan ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba go'aanka dawladda dhexe ee dalka kadib safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa madaxtooyada qaranka gaarsiisay dhambaal uga yimid wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga oo lagu bogaadinayo mowqifka geesinimada leh ee ay Soomaaliya qaadatay. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo shacabka reer Turkiga waxa ay dhiirigelinayaan isla markaana ammaanayaan mowqifka dawladda Soomaaliya ay ka qaadatay gafka Faransiisku uu kala kacay diinteena. waa in aan dhinac uga soo wada jeesanaa kuwa raba in ay suurad xumeeyaan diinteena sharafta leh. sidaas ayaa lagu yiri dhambaalka loo soo diray Villa Soomaaliya ee ka yimid dhinaca iyo wadanka Turkiga, oo qof ka mid ah shaqaalaha Turkiga oo dhambaalkaas arkay uu nala hadlay. dalka Turkiga ayaa hogaaminaya dalalka muslimiinta ah ee ka dhidhinaya gafka uu madaxweynaha Faransiiska kula kacay diinteena, iyadoo Pakistan ay tahay dawladda labaad ee tallaabooyin muhiim ah qaadaysa.
docda kale madaxweynaha Masar ayaa diiday in dalkiisa laga dhigo isu soo bax weyn oo looga soo horjeedo gafka diinta lagula kacay. Cabdilfataax al-Siisi oo markaasi u janjeera dhinaca reer galbeedka ayaa bayaan uu soo saaray Al Jazeera ay warisay waxa uu ku sheegay in dalkaasi aysan ka dhici karin isu soo baxyo diimeed ama mid lagu diidayo gafkii diinta ay kula kaceen Faransiiska. Tani ayaa masawir cad ka bixinaysa hogaamiyaha Masar talada dalkaas haysta kaas oo in muddo lagu xaglinayay dhanka reer galbeedka iyo xulafadooda. maanta oo ah 12 bisha Mawlid waa maalintii uu dhashay nabigeena suuban nabadgelyo naxariis korkiisa haatee, waxaana magaalooyinka waaweyn ee caalamka ka dhacaya munaasabado iyo xaflado lagu weyneynayo maalinka, iyadoo sidoo kalena isla munaasabado iyo soo baxyo dhinac socda lagu diidan yahay gafka diinta Islaamka. Magaalada Muqdisho iyo magaalooyin badan oo ka tirsan Soomaaliya ayaa lagu dhigayaa weyneynta nabigeena dhalashadiisa iyo in laga dhidhiyo gafka uu Faransiiska iyo wadamada reer galbeedka ay kula kacayaan diinteena sharafta leh ee Islaamka. si kastaba haatee wixii warar ay ku soo kordha xaaladahaas jira waan idin la soo socodsiin doonaa. dhinaca kalena Sheekh Cabdirashiid Sheekh Ali Suufi ayaa saaka salaada subax ka tujiyay masjidka caanka ah ee Hagia Sophia ee ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. kadib 86 sano oo uu madxaf ahaa, dhismaha Hagia Sophia ayaa markii ugu horeysay bishii July ee sanadkan waxaa laga dhigay masjid, waxaana lagu tukaday salaada Jimcaha iyada oo ay halkaas isugu soo baxeen dad aad u fara badan oo muslimiinta Turkiga ah. dhismahan waxaa masaajid ka dhigay dowladda Cusmaaniyiinta kadib markii ay masiixiyiintii haystay halkaasi ka qabsadeen sanadkii 1453. Hagia Sophia waxa uu ahaa dhismo kaniisadeed oo uu dhistay imbaradorkii Byzantiniyiinta oo la oran jiray Justinian sanadkii 537. waxaa la rumaysan yahay inuu ahaa dhismaha kaniisadeed ee ugu weyn dunida. markii la qabsaday masjidka waxaa lagu sameeyay dhismahaas waxaa lagu sameeyay dib u habeyn iyadoo Cusmaaniyiinta ay u dhiseen minaarado waaweyn oo shacaa'irta Islaamka muujinaysa. sidoo kale waxyaabihii ay gaaladu ku qoreen dhismahaas kaniisadda ahaa ayaa la saaray naqshad qurux badan oo dahabi ah, iyadoo Quraanka iyo Carabiga kelmado ku qoran oo wanaagsan lagu qoray masjidka gudihiisa. qarniyo badan oo uu astaan u ahaa imbaradoriyadii Islaamka ee Cusmaaniyiinta kadib waxaa markii Turkiga uu isku rogay jamhuuriyadda Cilmaaniga ah laga dhigay dhismahaas goob madxaf ah. Hagia Sophia ayaa haatan goobta ugu caansan dalka Turkiga oo waxaa sanadkiiba u daawasho taga 3.7 milyan oo qof oo dalxiis ah. waa hagaaga markana aan fiirino wararkeena kale. qaramada midooba ayaa laashay dambi iyo baaris lagu waday taliye sare oo aad ugu dhawaa Xasan Cali Khayre. golaha ammaanka qaramada midooba ayaa shaaca ka qaaday in wax dambi ah uusan markaasi lahayn oo uusan wax xiriir la lahayn General Saadiq Umar Maxamed oo ah taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir. kooxdii hore ee qaramada midoobe u qaabilsaneed kormeerka cunaqabataynta hubka Soomaaliya iyo Eritrea ayaa waxa ay ku eedeysay General Saadiq inuu xiriir la leeyahay kooxda Al-Shabaab. hase yeeshee kulan xalay golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay arrimaha Soomaaliya ka yeesheen oo safiirka Belgiumka uu shir gudoominayay ayaa lagu cadeeyay in Saadiq uu bari ka yahay eedeymahaas hore loogu jeediyay. waxaan jeclaanahay in aan idinku wargelino guddiga khubarada qaramada midoobe in ay cadeyn u waayeen markii ay baareen in Saadiq uu xiriir la leeyahay argagixisada Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraalka. go'aanka guddiga khubarada ayaa waxaa sidoo kale soo dhaweeyay dowladda Shiinaha. safiirka Shiinaha ayaa waxa uu qoraal uu soo dhigay bartiisa ku yiri waa mowqifkeena joogtada ah in cunaqabataynta laga qaado guud ahaan Soomaaliya iyo in markaasi la qiimeeyo xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka. dowladda Soomaaliya iyo qareeno matalayay General Saadiq ayaa muddo ku howlana sidii dambi la'aan looga dhigi lahaa ama tuhunka jananka la geliyay looga saari lahaa. dhanka kalena Mareykanka ayaa shaaciyay xeelad cusub oo uu markaasi kula dagaalamayo dhaqaalaha ay Al-Shabaab markaasi la sheegay in ay ka aruuriyaan gudaha Soomaaliya.
dowladda Mareykanka ayaa shaacisay in ay diiradda saareyso xaaladaha awoodda al-shabaab inay fuliso weerarada ka dhanka ah ee dadka rayidka ah waxaana sidaas lagu sheegay warbixin ka soo baxday howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya dowladda Mareykanka ayaa waxa ay tilmaamtay in ay ka shaqeyn doonto ka hortagga khatarta al-shabaab ay dhaqaalaha xoog leh ku helayaan si looga hortago inuu xoojiyo weeraradooda waxaa naga go'an in aan la shaqeyno Soomaaliya sidii ay uga faa'iideysan lahayd nidaamka cunaqabataynta hubka iyo waxyaabaha qarxa ayaa lagu yiri warkan dowladda Mareykanka waxa ay ka codsatay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya inay taageeraan tallaabooyinka waaweyn ee markaasi wax looga qabanayo argagixisada sida lagu yiri bayaanka ka soo baxay qaramada midoob waa Mareykanka ugu dambeyntiina Mareykanka iyo Shiinaha ayaa waxa ay wadaan qorshe Soomaaliya ka dhan ah dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa waxa la sheegayaa in ay golaha ammaanka dhexdiisa ka wadaan abaabul weyn oo ah in Soomaaliya aan laga qaadin cunaqabataynta hubka ay saaran labadan safiir u fadhiisa dalalkaas ayaa sheegay inay u baahan yihiin in qaraarada 751 iyo 2498 ee cunaqabataynta hubka wadanka Soomaaliya uu sii jiro danjirayaasha wadamada u qaabilsan qaramada midoobo waa Mareykanka iyo Shiinaha ayaa golaha ammaanka ka hor sheegay inay taageersan yihiin in qaraarkani wali uu sii shaqeeyo labadan dal ayaa la toonsan yahay in ay aaminsan yihiin in wali Soomaaliya aysan gaarin biseelkii ahaa in laga qaado cunaqabataynta hubka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkeeni wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya oo ka daawanaysan channelkeena Warqad TV tan iyo kulantada dambe saaxiibayaal nabad gelyo